وعلى آله وصحبه أجمعين. This is a proud moment for all of us. I think it's proud indeed to see the second batch of Southwest State Police trainees that from today onwards will become police members in this state to protect their communities. There's one word that comes to mind, and I would say impressive. maanta waxay joogaan isbeddelkii taariikhda waxay ka baxayaan xilligii tababarka iyo aqoon kororsiga waxay u gudbayaan xilliga shaqada oo lagu ogaanayo qofka waxa uu yahay iyo dhaqankiisa rasmiga markuu shaqada aada la ogaana maanta laga bilaabo xilaa idin saaran nabadda inaad sugtaan ilaaha sugi kare nabadda meesha maanta ay joogto ku idinka horreeyey waa lagu diirsaday way dhaqaajiyeen idinkana meesha ay geeyeen kasii bilowdaan oo lasii wadaana laydinka rabaa runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa tababarkan ciidamada amisom tababarka ay tababareen iyo dowladihii dhaqaalaha geli